السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inta badan inagoo isticmaala timirta haddana markaynu timirta isticmaalayno waxaynu iska tuurnaa lafta timirta dhexda ugu jirta laakiin tijaabooyin iyo daraasado ilaa 10 gaadhaya oo lagu sameeyay laftimireedda waxaa lagu sheegay inaanay sax ahayn in la tuuro lafta timirta dhexda ugu jirta iyagoo khubaradani sheegay in laftimireedda ay ku jirto maado u fiican ilkaha iyo ciridka isla markaana ka ilaalisa igfashanka iyo xanuunka iyagoo ku taliyay in laftimireedda inta laba loo kala jeexo kadibna afka la geliyo oo afka lagu hayo ama la moodmoodsado ilaa 20 daqiiqo dhinaca kalena in laftimireedda la burburiyo oo la daqiijiyo kadibna shaaha lagu darsado waxay sheegeen inay dawo ka tahay xanuunka la yiraahdo maradu noqoros ee ku dhaca maqaarka isla markaana marka qaabkan loo isticmaalo waxay u fiican tahay dadka qaba xanuunka sonkorowga iyadoo wanaajisana dhiigga dhinaca kalena in laftimireedda la daqiijiyo oo budo laga dhigo kadibna biyo lagu darsado waxay dawo ka tahay dhagxaanta ku samaysanta kaliyaha dhinaca kalena dhammaanteen waxaynu ka wada dharagsanahay waxtarka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay xabxabku ama qaruhu hase ahaatee markaynu doonayno inaynu xabxabka cunno arrinta ugu horreysaynu qabanayno waxaynu ka dhignaa inaynu ka saarno xabxabka midhaha yaryar ama iniyaha dhexda ugu jira kadibna aynu iska tuurno midhahaas inagoo aan ogeyn inay iyaga laftoodu waxtar leeyihiin haddaba midhahan ama iniyahan ku dhex jira xabxabka waxa aad looga isticmaalaa meelo ka mid ah Aasiya iyo bariga dhexe waxaana midhaha ama iniyaha xabxabka ku jira xaddi sare oo borotiina iyo faytamiin B sidaas darteedna waxay wanaajiyaan shaqada joogtada ah ee jidhka isla markaana midhaha xabxabka waxa ku badan maadada magnesiumka sidaas darteedna waxay yareeyaan khatarta dhiigkarka waxa kale oo ku jira midhaha xabxabka maadooyinka fosfoorka xadiidka potassiumka nuxaasta iyo maadada sanag iyo kuwa kaleba isticmaalka midhaha xabxabku waxay aad ugu fiican yihiin dadka qaba xanuunka macaanka ama sonkorowga waxaana lagula taliyaa dadka qaba xanuunkaas in wax yar oo ka mid ah midhaha xabxabka ay ku kariyaan litir biyo ah una daayaan 45 daqiiqo 45 daqiiqo kadibna inay dabka ka qaadaan kadibna ay cabaan hal koob sidii shaaha oo kale dhinaca kalena isticmaalka midhaha xabxabku waxay wanaajiyaan xasuusta maskaxda waxaanay wanaajiyaan caafimaadka wadnaha waxaanay u fiican yihiin maqaarka sare ee jidhka qaabka loo isticmaalayana waa in wax yar oo ka mid ah midhaha xabxabka lagu kariyo biyo kulul kadibna la cabo hal koob sidii shaaha oo kale iyadoo la isticmaalayo weygiiba 3 jeer oo kaliya waxaana baraarujin mudan midhaha xabxabku marka qaabkan loo sameeyo waxay yeeshaan dufankaasina uma fiicna dadka qaba gaaska sidaa darteedna ma fiicna in midhaha qaabkan loo isticmaalo xilliyada cuntada aad cunto kadib amaba cuntooyinka la raaciyo waana in isticmaalkooda laga dhiga xilli aanad cunto cunin ama markaad cuntada cunto 2 saacadood kadib